cashirkeenan waa cashirkeena saddexaad aan ku qaadan doonaa environmentiga iyo Visual Studio aan kasoo sheekeynay sida loo install gareeyo aan kusoo qaadan cashirkeena hore sida loo isticmaalo. Hore waxaan uga soo sheekeynay sida Visual Studio loo install gareeyo latest version-kan ugu dambeeya 2019. sidoo kale waxaan idin sheegay in la isticmaali karo Visual Studio 2000 kale noocyo kale version kale oo kala duwan dhammaantood ay isku mid yihiin oo kaliya version-ka ay kala duwan inaad isticmaali karto 13 2013 inaad isticmaali karto 15 inaad isticmaali karto waxa loo yaqaan 17 ama 19 intaba aniga hadda course waxaan isticmaali doonaa 2015 hadduu computerkaaga ku jiro 13 waa isticmaali kartaa laakiin wax ka hooseeya sida 12 10 iyo 8 iyo 2005 ha isticmaali 13 iyo wixii ka sarreeya 15 iyo 13 just like same environment way kala siman yihiin 16 environment sidoo kale way siman laakiin waxay ku kala duwan yihiin kaliya marka la soo rangareynayo oo kaliya waayahay aniga hadda waxaan isticmaali doonaa Visual Studio 2015 sidee loo rangareeyaa Visual Studio waxaad tegeysaa start menu kadibna waxaad raadinaysaa Visual Studio 2015 version-kaaga ayaa dhacdoon waxaan leenahay run aniga hadda waxaa igu jira waxa loo yaqaan Enterprise Edition 2015 oo free edition adiga waxaa soo degsataa 2019 Ultimate Edition not Enterprise soo degsan haddaad haysato 2013 sidoo kale fiican haddii aad 15 haysato sidoo kale fiican 19 haddaa haysato fiican laakiin wax ka horeeya ka dambeeya ha isticmaalin waayahay environment-geena waxaa loo yaqaanaa meeshan start up page loo yaqaana marka ugu horeysa waa meesha kuu soo rangareysameysa aad soo rangareyso Visual Studio software-kii ama environment-ga aad ku dhisi lahayd ASP.NET meeshan wuxuu ka bilaabanayaa qaybtan Visual Studio inta discovery-gan iyo news-kan uma socono sharaxaadeeda waxaa jira course free hal cashir oo free oo loo yaqaano what's new in Visual Studio oo aan uga sheekeynayno Visual Studio iyo sida uu shaqeeyo anaga hadda rabnaa inaan isticmaalo Visual Studio inaan ka sheekeyno rabno qaybtan visualka waxaa ku jira start iyo recent aan ku hormarno qaybta recent-iga qaybta recent-iga waxaa ku jira project-yada ugu dambeeyay ee aan wax ka qoray ama websites ha ahaadaan ama nooc kale ha ahaadaan oo meesha ku qoran hoos waxaa ku qoran laba meel oo la saarayo checkbox start a page-kan haddii uu project-gayga soo kaco ha iisii joogo tusaale new project aan sameeyey ama existing project aan furay new project markaas ama existing project aan furo start a page-kan ha sii joogo haddii jeeg aan saaro wuu joogaya haddii aan ka qaadana mar alla markaan project sameeyo project-gaas ayay geen doonaa start a page-ka lagu wareejin doonaa mar walba uu soo rangareysmaayo start up kastoo Visual Studio markastoo aan soo rangareeyo haddii aan ka saaro start up page-kan ha joogo qaybta labaad waa maxay qaybtan waxaa loo yaqaan start inaan new project sameeyo ama inaan existing project furo labadaas ugu muhiimsan anaga hadda waxaan rabnaa new project sida loo furo waa qaadan doonaa website-kii ugu horreeyay oo ASP.NET inaan sameyn oo baahan waxaan leenahay new waxaa ii soo bixi doona dialog box loo yaqaano new creating project new dialog box ASP.NET waxaan dhahnay waxaa loo isticmaalaa web application framework ee leedahay Microsoft ama waa qayb ka mid ah .NET framework cashirkeena hore sidaan ku sheegnay inta waxaa ku qoran .NET framework version 4.5.2 xagee laga soo bilaabay 2.0 oo ah 2002 ayaa lasoo bilaabay ilaa hadda uu socdaa 5.6.7 something haddii aad isticmaalayso 2019 waxaa la isticmaalaa 4.7 inuu yahay laga yaabo almost meelaas weeye waayahay sida default-iga uu ku yahay faraha u qaad xagee laga helaa marka ASP meelahan ASP.NET ma laga helayo haddii aad fiiriso luuqadaha meeshan kugu install garaysan lagama helayo waxaan haysanaa Visual C# under C# waxaan haysanaa web application kadibna ASP.NET hore waxaan idinkugu sheegay inaan ku qaadan doono ASP.NET laba luuqad midood C# ama VB anaga hadda ma rabno C# waxaan ku qaadan doonaa Visual Basic kadibna web then ASP.NET oo Visual Basic kadibna project-gaaga magaca u bixi meeshan waxaad ku sheegi doontaa browse markaad dhahdo file-ka ama project-gaaga meesha aad dhigo the location of your project waxaan dhigan doonaa our C drive then project folder oo samaysanayna horey ugu jiray anaa u samaysanay waa kana project folder kadib waxaan dhignaa our C drive project folder web application wana ku qoran project-gaaga website-kaaga magaca ugu horreeya u baxsan
website-kan waxaan u bixinaynaa somehow ASP.NET Essential magacaas aan waxsanaa kadibna waxaan nahay dhibicdan inaan iska saarno oo qurux badan tahay haddii kale wax badan ay kaa qaas kartaa mar alla marka inta qoro intan wax badan qoraa the name of the project and the solution name solution name kan iyo project name kan waa sharixi doonaa cashirkan cashirka ku xiga waxa ay kala yihiin iyo farqiga u dhexeeya laakiin waxaa iska ilaalisaa inuu kuu saaran yahay add to source control j sidoo kale inay jeeb kuu saaran tahay add application insights project iska ilaali kadib waxaan leenahay okay waxaa laga yaabaa 2013 haddaad isticmaalayso waxyaabahan qaar inaysan kuu soo bixin okay aan leenahay automatic waxaa kuu soo bixi doona ASP.NET qaybaheeda kala duwan ay ka kooban tahay aaday u fara badan tahay ASP.NET annaga hadda ku dheeraan doono inaan wax ku basheegsano tusaale web formka oo kale waa qayb ka mid ah templateska ee leedahay ASP.NET si gooniya ayaa loo bartay MVC-dooda model view controller web API waxaas oo dhan uma socono annaga waxaan rabnaa from scratch inaan kasoo bilaabno ASP.NET waxaan dooranaynaa empty website ama empty template intaan oo dhan uma baahno kadibna waxaad iska ilaalisaa inay kuu saaran tahay unit testing add unit test inuu jeeb kuu saaran yahay iska fiiri hadduusan kuu saarnayn waa fiican tahay sidoo kale hosting in the cloud maadaama anaga internetka aynaan saaraynin iska ilaali inay kuu saaran tahay hosting in the cloud kadib waxaan leenahay okay waxaa lagu samayn doonaa website-kaaga ugu horreeyay oo loo yaqaano ASP.NET Essential qaybta ugu sareysa start up page hadda ay ku qoran tahay waxaa kusoo qoran doona projectigaaga magaciisa kadibna asaga ayaad isticmaali doontaa hadduu ilaahay yiraahdo gudihiisa ayaan baran doonaa iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loogu qoro hello world website-kaaga kadibna loo rangareeyo meesha laga rangareeyana waa sharxi doonaa okay waxaa noola sameeyo projectigeena loo yaqaano ama website-keena loo yaqaano ASP.NET Essential wuxuu leeyahay laba qaybood left iyo right qaybta leftiga iyo qaybta right-ka bidixda ama midigtan haddaan ka hormarno qaybta midigta waxaa ku jira wax loo yaqaano solution explorer oo marka ugu horeysa ah auto header waa maxay automatic wuu qarsan yahay markii mouse la kor keeno ayuu shaqeynayaa haddii mouse lagala laabto wuu joogayaa tusaale meel kale haddaan aado wuu qarsamaya solution explorer keena rabaan inaan barno waxaan leenahay auto hide ka qaad pinkaas iyo sur meesha staa pinka hoos u jeediyo waxaa waa auto hide ka laga qaaday meel kastoo aado wuu taagnaanaya asaga wuu shaqeynaya file lamid ah meeshan waayahay si marka projectkan solution explorer waa maxay solution waxaa loo yaqaanaa filekan inta qayb uu ka kooban yahay solution loo yaqaano tusaale how many projects uu ka koobnaan karaa one solution ASP.NET waxaa leedahay ama Visual Studio application lagu sameeyo solution hala solution-kaaga wuxuu ka koobnaan karaa hadda wuxuu ka kooban yahay one project hal project oo loo yaqaan ASP.NET Essential waxaan kaloo kusoo dari karaa another project oo magac kala wata anigoo leeyahay right click then add new project waa maxay waa mid ka mid ah solution-kaaga waxaa loo yaqaanaa project loo yaqaano ASP.NET Essential solution-keena loo yaqaano project ka midana waxaa waaye ASP.NET Essential oo VB.NET intaan ayuu ka kooban yahay solution iyo projectiga wuxuu ka kooban yahay reference maybe haddii aad 13 isticmaalayso inaysan kuu soo muuqan qasab maaha inay soo muuqato waa ka socon kartaa package configuration sidoo kale qasab maaha inay kuu soo muuqato waa ka soconaysaa laakiin waxaa muhiim ah web.configuration inaad aragto oo ah website-kaaga meesha uu ka nool yahay oo aan ka samayn doono configurationska sida connection database oo kale waxyaabahaas markaan rabin inaan sameeyo qaybta aan ka sameeyno waxa loo yaqaan web.configuration gadaalaheena dambe ayaan ka doodi doonaa web configuration solution waa maxay solution explorer waa meesha project resource-gayga ama waxyaabaha website-kayga ka kooban yahay ay soo geli doonaan tusaale pageska uu yeelan doono website-kayga folderska uu yeelan doono sawirada aan gelin doono waxay kasoo muuqan doonaan qaybtan loo yaqaan solution explorer qaybta bidixda aan aadno marka qaybta bidixda waxaa ku jira wax loo yaqaan solution explorer toolboxkan waxaa ku jira dhammaan objectska aan ASP.NET ka isticmaalo hadday tahay text label view waxyaabaha wax lagu soo bandhigo ama environment-ga aan sameyn lahayo dhan waxyaabaha aan u isticmaalayo waxa loo yaqaanaa solution explorer waxaa jira wax loo yaqaano property window oo ah meesha behaviorska objectskaas aan ka sad gareyno tusaale badhan aan soo dhigto
widthkiisii heightkiisii wax lamid ah meeshaan ka set garayna waxaa loo yaqaanaa property window. inta inaan waxaas oo dhan sharaxin waa inaan aragnaa sidee loogu soo daraa hal page my ASP.NET sida loogu soo daraa one page my ASP.NET. waxaad imaanaysaa your solution explorer under the project name not the solution. projectiga dhexdiisa imaanaysa waxaa leedahay right click kadibna waxaan leenahay add then waxaan dooranaynaa new item. mar alla markaa new item doorano waxaad ka dooranaysaa waxaa ku jira code data general web kadibna waxaan ka dooranaynaa wax loo yaqaano web form. web formkaaga waa extension inuu qaataa ah .aspx oo ah extensionka ee qaadan doonta ASP. haddii aad HTML iyo PHP hore usoo qaadato waxaad arki jirta .php .html meeshan waxaad ku arki doontaa .aspx oo ah page walba oo ASP waa inuu qaataa ASPX. waxaan u baxsanaynaa default oo ah the first page oo aan isticmaali doono. default waxaa laga wadaa sida HTML iyo PHP aad u isticmaali jirta index page ayaa meeshan waxaa loo isticmaalaa default page. si lamida waxaad kusoo darsan kartaa HTML pageka caadiga ah aad taqaano. ana hadda waxaan rabaa web form oo ah ASP.NET. haddii aan doorto kan HTML default.html web form .aspx kadib waxaan leenahay automatically waxaa lagu dari doonaa meeshan default page loo yaqaano. intan waxaa lagu furi doonaa barxaddan isla asagaas oo trangareysan oo HTML-kiisii iyo wixiisii oo qoran yihiin. okay automatically waxaana loo furay ASP.NET for the first page oo aan isticmaal leh. waayahay inta waxaa loo yaqaanaa marka ugu horeysa aad ASP.NET sameyso sida loogu soo darsado pagekaaga ugu horay. waayahay pagekeena waxaan u sameynaynaa title waxaan leenahay somehow my first ASP.NET website. my first ASP.NET website. This is the title of the page. inta waxaan rabnaa inaan kusoo qorano waxa loo yaqaana h1. h1 qof kasta wuu yaqaanaa oo ah somehow leenahay h1 kadibna waxaan leenahay welcome to my website in ASP.NET. kusoo dhawo website-kayga anagoo isticmaalaya ASP. that's creating of ASP.NET. sidee loo rangareeyaa marka arabto inaad rangareyso ASP.NET waxaa laga rangareeyaa server loo yaqaano IIS Express. IIS Express waa Internet Information Services loo soo gaabiyo. waa serverka keliya ee isticmaasho Windows oo loogu talagalay in lagu rangareeyo websites. laba server jirta Apache server iyo IIS server. Apache server waa free waxaa loo isticmaalaa dhammaan operating systems ka soo haray Windows. laakiin Windows keligiis waxaa loo isticmaalaa IIS Express. computerkaaga inuu ku jira laga yaabaa mar alla marka computerkaaga Visual Studio ku shubato waxaa lagu shubi doonaa IIS Express. sidaas daraadeed aan rangareyno projectkeena. sidee loo rangareeyaa waxaad dooranaysaa fileka aad rabto inaad rangareyso kadibna calaamadda start meeshan waxaa kugu jira browseriska computerkaaga ku jira adiga. waayahay kadibna waxaan leenahay start. debugging ayaa la sameyn doonaa building project configurationskiisa iyo waxaa la hubin doonaa dhammaan inuu website yahay kadib ayaa waxaa lagu rangareyn doonaa browserkaaga. aniga hadda waxaa igu install gareysan computerkayga Chrome ayaa lagu rangareyn doonaa. waqti ayuu qaadanaya the first time of debugging waaye kadibna projectiga ayaa lagu rin inkastoo wax badan oo code aynaan qorin marka laga reebo codekan loo yaqaano client side-ka oo aan sharxi doono cashirkeenan cashirka ku xiga. code badan oo ma aanan qorin VB ama C# ma aanan qorin. sidaas daraadeed waqti badan ku bixinaa haddii aad codekaas qorto kale waa laga yaabaa inuu waqti badan qaado. yes waxaa noo soo rangareysmay our browser. automatically waxaa noo soo rangareysmay browserkeena waxaa laga soo rangareeyaa the local host this port number this is the IIS. haddii aad meeshan imaato waxaa kugu qoran wax loo yaqaan IIS Express Internet Information Service. IIS Express-kan waa meesha aan ka rangareyn doono oo keliya. haddii aad furto right click dhahdo waxaa hadda ku rangareysan ASP.NET Essential port numberkaasaa laga rangareyay. waa joojin karaa intaa ku joojin karaa shaqada waa ku joojin karaa isagana exit dhihi karaa ama applicationska IIS ku rangareysmaa dhinaa furan karaa. sidaas daraadeed automatically waxaa ii soo rangareyn doonaa IIS Express kadibna website-kayga port numberkaasaa la gelin doonaa kadibna waxaa leenahay pagekaasaa laga soo rangareeya loo yaqaan default.
okay automatic waxaa noola sameyn noola soo aqri website-ka welcome to my website. waxaan ku dari karaa style iyo wax lamid ah tusaale wuxuu leeyahay qayb loo yaqaano design haddii aan designkii imaado ASP.NET kadibna aan doorto fartan oo aan dhaho text align meeshan adiga waxaa laga yaabaa computerkaaga inuu yar yahay ama uu weyn yahay hadduu computerkaaga yar yahay inta waxaa imaan doona formatting optionski alignmentii iyo wixii u baahneed oo dhan waxaad dooranaysaa meeshan kadibna waxaa leenahay justify to the center qaybta ku xigta waxaa ku jira loo yaqaan fontigii iyo wax lamid fontiga markaan rabo inaan bedelo watan for color waxaan rabaa inaan ka dhigo blue kan kadibna okay save aan leeyahay anigoo projectigii stopki kadibna refresh maadaama website uu yahay refresh aan leeyahay automatically inta central laga dhigi doonaa colorkeedana blue ayaa laga dhigi doonaa marka intaas sameeyo waxaa samaysan doona wax loo yaqaan style sheet ama wax loo yaqaan CSS haddii aad imaato qaybta source code-ka waxaa lagu sameeyay style kadibna text align to the center glassna waxaa out style 1 text align to the center color process haddii aan rabo inaan sameeyo border color stylekan uba wax ka bedelayna waxaan leenahay wax loo yaqaano border dash bottom kadibna waxaan leenahay 1 pixel solid colorkiisana waxaan leenahay 000 simple kadibna waxaan leenahay refresh hoosta laga xariiqi doonaa border bottom ayaa la sameyn doonaa